بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN. qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Iiraan maalintii shanaad ayaa waxaa socda banaanbaxyo waxaana lagu soo waramayaa in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen banaanbaxyadii ugu dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen doodbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka. gudaha Israa'iilna 15 qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay. وهجاج وهي حاجة إيران أين أجرى محمد بنا بحيث ما أنت شناد بالسعودان لما قف ما أنت لمتي إيش شيء كويس إسرائيل سيدا إشيكتي وعني حبين هرسيد حال السيد إني مصاد أو شيء إني كل أولادها أهرن تاسي أهرن مركا ضدك إيرانيين هدي مدحوينه أو حلي أو يري وحبان كقبانين أهرن تان وجدومية عصوب لما جعبي بنجيجا مو قنيسة إني سن كتو سارق هذا روحي كرد عي ama Ciraaq ha noqoto inkastoo Ciraaq lagu baduulayba laakiin Syria iyo Libya wixii ka dhacay oo kale inkastoo wado badan oo Carbeed arrimahan ay ka dhaceen laakiin meelaha dhibaatada xoog leh ay soo gaartay ay kamid tahay inaysan ka fakareen xaaladdan hadda ay u muuqato mid laga yaabo in laga faa'iideysto inkastoo aysan ahayn markii ugu horeysay barnaamijyo ka dhacaan halkan. su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican. waxyaabo waxaa jira aan warbaahinta soo gelin ee wadanka إيران gudihiisa ka socda. wadamada BRICS ayaa dib u qaabeyn ku sameynaya nidaamkooda dhaqaalaha. Iiraan waxay ka guureysaa dhammaan nidaamkii dhaqaalaha ee wadamada reer galbeedka ee SWIFT loo yaqaano. waxay u guureysaa nidaam ay leeyihiin wadamada gacan saarka la leh BRICS. nidaamkaasi cusub ee loo guurayo ayaa waxa uu keenayaa xasaasiyad xagga dhaqaalaha. dadkan mudaaharaad ee arkaysa banaanada u soo baxaya waa dadka dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay qurba joogta marka la fiiriyo iyo danahooda waxay ahaayeen dadka ugu hodansan oo wadanka Iiraan gudihiisa maadaama Iiraan ay ka guureyso nidaamkii dhaqaalaha ee reer galbeedka. dadkii reer galbeedka dhaqaalahooda ku xirnaa ama lacag ay bangiyadooda u yaaleen ama lacag looga soo xawili jiray waxa ay la kulmayaan in jeebkooda ay ku imaanayso xilligan kala guurka dhaqaale xumo. mudaaharaadada aad arkaysidna wax saameyn kuma yeelanayaan wadanka Iiraan oo mudaaharaadyo ka waaweyn ayaa wax ka qaadi waayay. waxa hadda socda oo Israa'iil ay sheeganayso ay leedahay anaga aan ka dambayna waxa weeye waa ku orkacsanaysaa dadkan dhibaatada haysa waa ka weyn tahay dhibaatada ay Israa'iil sheegayso oo siyaasad ahaan ay u kaashanayso. dadkan waxay ahaayeen dad dhaqaalahooda uu ku xiran yahay nidaamka caalamiga ah ee Mareykanka iyo reer galbeedka ay galwadeenka yihiin. tan kale wadanka Iiraan marka la yiraahdo xagga difaaca iyo xagga is-abaabulkiisa waa wadan aad isugu kalsoon. 50 sano la soo dhaafay una qabatayn lugooye in ku filan lagu hayay. hadda waxa uu khadka ku xirtay wadanka Shiinaha oo badeecada iyo shidaalkaba ay kala bedeshaan. dhanka Ruushkana ayadana hawl ayaa bilaabatay oo way yimaadeen dubcadihii ugu horeeyay ka imaanaya xagga khadka tareen ku imaanaya wadanka Ruushka. Iiraan waxaad moodaa inay jiha kala yeelatay. warbaahinta reer galbeedka wax allaaliya wax Iiraan ka qorayso iyo hanjabaadaha loo jeedinayo sida khabarada hadal ku dhigayaan wax saameyn ku leh maaha. Iiraan waxay ku jirtaa xilli kala guura. Iiraan kaliya maaha wadanka Koonfur Afrika ayaa asaga la sakiisa bangiyadiisa waxa uu toos ugu xirtay bangiyadii wadamada BRICS oo waxa uu isticmaalayaa lacagta Shiinaha. caalamkana hadda waxaad moodaa in ay soo baxeen khiyaaraad kale. wadamo badan ayaa u wareegaya. siyaasadda marka ay timaado wadanka Iiraan si cad ay u sheegeen sicir bararka inay wax ka qabanayaan. dadkan xaq u leeyihiin in sicir bararka ay ka cawdaan laakiin inay xaq u lahayn in ay burburiyaan kaabayaasha dadka rayidka iyo kaabayaasha xukuumadda. ilaa ayaa haddana tillaabooyinka la qaaday dadka la xirxiray iyo kulli waxa weeye dad geystay falal ay ku xadgudbeen dariiqii mudaaharaadka ee nabadda ahaa u bedelay mid gacan ka hadal ah.
way xagga ruushka aynu kusoo gabagabayno Ukraine waxay leedahay anagu maana duqeyn mana aan weerin madaxtooyada Novgorod waxaa taageeray macadka amniga qaranka ee Mareykanka wuxuu leeyahay ma jirto wax cadeyna xalayna madaxweyne Trump baraha bulshada wuxuu soo dhigay fariin uu ku leeyahay beentan ruushka uu wada waxay ka macno tahay in Putin uu san nabad doonayo maxay arrintan u muuqanaysaa wax weyn lagama qaban karo Putin waxa uu doonayo iyo waxa uu doonayn Mareykanku waxba kama qaban karo Putin muddo badan ayuu adkeysanayay xadgudubka wadamada reer galbeedka ay ku sameeyeen xuduudkiisa iyo meelo ku dhow hore ayuu uga cawday in wadamo xuduudkiisa ku dhow la keenay gantaaladii Mareykanka ahaa kuwa istiraatiijiga ah si kale loo dhigo gantaalada nukliyeerka sidaas si lamid ah ayaa ruushku wuxuu la xirtay wadanka Venezuela oo uu geystay agab military oo ay ka mid yihiin maraakiib dagaal iyo gantaalo guuxooda ka dheeraya taana waxay ahaan jirtay deegaan wadamada la yiraahdo Latin America Mareykanku baa wuxuu ka ahaan jiray diiq hadda laakiin wala la yeeshay tan kale oo la xiriirta in ay marqaati ka keeneen diyaaradaha ay soo rideen qaar kamida fariimihii amarka ahaa ee kombiyuutarkii yaraa chipkooda ku jiray ayaa muujinaya in diyaaradaasi gacanta lagu dhigay ay ku socotay Belgrade xarunta madaxtooyada idaacadeena ku jirtaa in ruushka uu gudbiyay Mareykanka oo leeyahay itusoo taabsi tan kale Mareykanka wadamada uu hanjabo kuma jirto wadanka ruushka siyaasadihiisa dhowr goor ayay fashilmeen tilaabo kasta uu qaado oo ruushka dhankiisa ka qaado Putin waxa la yiraahdaa nin khibrad badan ciidanka sirta ka tirsanaan jiray muddo dheer madaxweyne soo ahaa madaxweynayaal badan Mareykanka la soo shaqeeyay madaxweynaha hadda jooga marka la barbar dhigo raggaasi waa nin aad u nugul sida ay khabiirada hadal ku dhigayaan Putinna ma aha iyo dawladdiisu wala ay Mareykanku handeli karaan sida khabiirada Mareykanka la fikirada hadal ku dhigayaan waa maxamed waa baasan tahay daawadayaashuna iyo mahadsiyihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgeli maxamed caddo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn xukuumadda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa xanibaad ku soo rogtay xagga cirka ah dhammaan duulimaadyada ka imaanaya wadanka Istaga Imaaraadka Carabta ila xukuumadda ah ayaa warbaahinta u sheegay si loo yareeyo xiisadda sii kordhaysa ee lagu xiriirinayo colaadda iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee wadanka Yemen ayaa xukuumaddu tilaabadan u qaaday bayaankaasi ayaa waxa uu qusaynayaa dhammaan duulimaadyada ka soo baxaya magaalooyinka Abu Dhabi iyo Dubai waxayna qayb ka tahay dadaalada la rabo in lagu maareeyo xasaasiyadda diblomaasiyadeed iyo midda amni ee cadaadiska lagu saarayo Yemen dhanka kale ilo ayaa tilmaamaya in wasiirka gaadiidka ee golaha kumeel gaarka ee ka taliya koonfurta Yemen in uu diiday in uu amarkaasi u hoggaansamo wuxuuna soo saaray amar kale oo lagu joojinayo dhammaan duulimaadyada imaanaya ama ka baxaya airportka magaalada Cadan tilaabadani ayaa waxay muujinaysaa khilaafka ka dhex jira xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee wadanka Yemen iyadoo kooxdan gooni isu taagga raba ee koonfurta ay gacan saar ka helayaan wadanka Istaga Imaaraadka Carabta waxaana sii kordhaya walwalka laga qabo in ay kala shaqeynayaan xagga hagista hawada iyo xasiloonida guud ahaan maalintii shanaad ayaa waxaa isku dhacaya mudaharaadyo iyo ciidamada ammaanka magaalada ku taala koonfurta galbeed ee dalka Iiraan mudaharaadayaasha ayaa ka cabanaya sicir barar magaalooyinka qaar dadka saameyn ku yeeshay halka warbaahinta xukuumadana ay ku warmayso laba qof in ay dhinteen oo kamid ah mudaharaadayadan ayaa ka dhacay magaalada la deegaan oo 650 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Tehran
waxaana ay bilaabeen mudaharadayaashu inay dhagaxyo ku tuuraan dhismaha maamulka, sidoo kale dhismaha gobolka iyo masaajid ay leeyihiin dadkii shuhada ahaa ee u dagaalamay waddanka Iiraan, iyo xarumaha dowladaha hoose iyo bangiyada ka hor inta aynan u dhaqaaqin dhismaha gobolka. sida bayaanka lagu sheegay, booliiska ayaa isticmaalay gaaska dadka ilmaysiiya sida wakaaladda wararka ee rasmiga ah ay sheegayso ee waddanka Iiraan. wakaaladda ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday dhaawac tira inuu jiro. dadka mudaharadayaasha ah ayaa sheegay in xukuumadda ay tiro badan oo booliis ah keentay wadooyinka. ugu yaraan 20 qof ayaa oo lug ku lahaa mudaharaadka ayaa lagu xiray magaalada koonfurta galbeed ku taala ee Farsaan. waxaa sidoo kale la sheegayaa dadka la xiray intooda badan inay da'dooda ka yar tahay 18 sannadood. ugu yaraan 15 qof ayaa dhaawacmay, 3 kalena xaaladooda waa khatar kadib markii qarax uu ka dhacay xarun ganacsi oo ku taala waqooyiga magaalada Naasareed ee dalka Israa'iil, sida laga soo xiganayo warbaahinta maxalliga ah. qaraxaasi ayaa dhacay in yar kadib markii dukaan lagu iibiyo waxyaabaha la cabo ee ku dhowaa dukaan kale oo weyn uu dab qabsaday, waxaana dabkaasi uu dhaliyey qiiq aad u fara badan oo deegaanka oo dhan hareeyey. gurmadka degdega ah ee loo yaqaano Megan David Adam ayaa geeyey isbitaal dadka lagu daaweynayo, sidoo kalena waxaa la geeyey isbitaaladii ka dhowaa meelahaasi oo ka mid ah isbitaalka Talyaaniga, midka Ingiriiska iyo xarun kale oo caafimaad oo Afula la yiraahdo. dadka dhibanayaasha ay intooda badan miyir qaba, hase ahaatee qaar ayaa gubtay iyo qaar kalena dhaawacyo ayaa gaaray. sida la sheegay, waxyaabihii burburka ahaa ee qaraxaasi ka dhashay ayaa waxyeelay. booliiska ayaa sidoo kale baaritaan ku haya sababta dhalisay qaraxa. weli ma cadda sababaha, laakiin qiimeynta hordhaca ah ayaa lagu sheegay inay suuragal tahay in ay ka dhalatay gaas ka baxsaday goobihii taangiyada ahaa kadibna u dab qabsaday. deegaanka oo dhan ayaa waxaa xiray booliiska, waxaana uu wada baaritaan hay-adaha gurmudug degdega ah. saraakiishu waxay ka dalbanayaan dadka inay ka fogaadaan goobta baaritaan ka socda. xukuumadaha Mali iyo Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay xanibaad cusub ku soo rogeen dadka Maraykanka ah ee soo gelaya dalalkooda. tallaabadanna waxa ay si toosa jawaab ugu tahay Maraykanka madaxweynihiisa Donald Trump go'aan oo xanibaad ku soo rogay ama uu ku kordhiyey dadka muwaadiniinta labadaasi dal ah ee Maraykanka u safraya. tallaabadani ayaa soo baxaysa kadib markii xiisadda u dhaxaysa dowladda Maraykanka iyo wadamadan saaxilka la yiraahdo. Burkina Faso wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay tallaabooyin looga aargudanayo Maraykanka tallaabada uu qaaday lagu soo rogayo musaafirka Maraykanka, halkana Mali ay ku dhawaaqday inay iyadana xanibaad ku soo rogayso isla markiiba meel mar noqota, kuna cambaaraysay go'aanka waddanka Maraykanka uu qaatay isagoo wada tashi sameynin laga jawaabayo. labada dal ayaa waxaa maamula military xukuumadihii hore afgambiyey, waxaadna moodaa siyaasadahooda in ay sidoo kale la wadaagaan waddanka Nigeria oo bishii lasoo dhaafay 25keedii ayagana ku dhawaaqay inay si ku meel gaara oo u joojiyeen viisayaashii muwaadiniinta Maraykanka ay ku soo geli jireen waddankooda, ayadoo laga jawaabayo tallaabo uu Maraykanka hore u qaaday. arrimahani soo kordhay ayaa kordhinaya in diblomaasi ahaan xiriirka ka dhexeeya wadamadan saaxilka ah iyo wadamada reer galbeedka ay aad u kala fogaanayaan. sababahana waxaa lagu sheegay inqilaabyadii dhacay sanadkii 2020 iyo 2023. xanibaadahana waxaad moodaa inay walwal weyn u keenayaan mustaqbalka diblomaasiyadeed iyo midka amni ee lala kaashan jiray waddanka Maraykanka. wararka caalamkan waxaa ka mid ah waddanka Britain ayaa ogolaaday in uu baaritaan ku sameeyo sanduuqii madooba ee diyaarad ku burburtay waddanka Turkiga December 23. diyaaradda ayaa waxaa ku dhintay abaanduulihii waddanka Liibiya iyo tiro kale oo gacanyareyaashiisa ah. Liibiya oo ah xukuumadda ay caalamku aqoonsan yihiin ayaa warkaasi sheegtay. abaanduulihii ciidamada Liibiya
ayaa waxaa la sheegay maxamed alxadaad iyo 4 kale oo kaaliyaashiisa ah inay ku dhinteen shilkaasi diyaaradeed toddobaadkii lasoo dhaafay